kadib waxaan dhageysanay wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda oo iyagana inoo soo bandhigay soo magacaabis taliyaasha booliiska taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha ciidamada asluubta kadib markii ay faahfaahin dheer ay ka bixiyeen shakhsiyaadka ay u soo hordooteenoo aan ognahay inay cabaar abaashan anagana la fadhiday waxayna ahayd taxadir inay dawladda bixiso qofka ugu mudnaanta fiican ama loo isla leeyahay shaqadaas waa ka soo bixi karaa in horta la siiyo ma ahan wax kale laakiin tala fara badan ayaa la geliyey wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda ay geliyeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qarankana ayagana dadaalkaas oo ay wax ka wadeen in arintaas laga soo miro dhaliyo waxaa maanta 19 February loo magacaabay taliyaha booliiska General Bashir Ahmed Mohamed oo hadda ah ku-xigeenka taliyaha booliiska sidoo kale waxaa taliyaha nabad sugidda loo magacaabay mudane Xuseen Cusmaan Xuseen oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka waxaa kaloo loo magacaabay taliyaha ciidamada asluubta Sarreeye Guud Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe oo hore u ahaan jiray jagadan marka aadan ugu faraxsanahay taasna wasiirada markii la weydiiyey 25 wasiir maanta fadhiday wasaaradda caafimaadka kaliya naga maqneed 25 wasaaradu way isku raaceen waana soo dhaweeyeen waxaan u rajaynaynaa taliyaasha cusub oo la soo magacaabay kuwa ilaahay u fududeeyo shaqada ay qabanayaan waxaan u rajaynaynaa kuwii dhibaatada wadanka ka bixin lahaa inay noqdaan amniga arintiisa amniga meel dheer ayay ka timid haddana meel fiican ay maraysaa waxaan leenahay ku guuleysta insha Allah ta'ala anagana asaka xukuumad ahaan waa la taaganahay waa la shaqeynaa wassalaamu calaykum هلا السلام عليكم يا يري برنامجka qabow baa ka jira wax ka jira haba yaraatee ma jirto mudanayaal iyo marwooyin ha moogaanina ololaha bisha Febraayo ee qiimo jabinta aanu ku sameynay ballanteenu waa Anilis Furniture Design N90PD